بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bishii shanaad 2008ka halkan aan joogno waa access storage oo ku yaala Hanwell wadada la yiraahdo Boston Road waxaan halkan ku raraynaa dharkii muddada aan ka soo shaqeynay oo aan bilownay sanadkii tagay 2007 bishii afraad waxa halkan idinka muuqda waa Ducaale Ciise Yuusuf oo jawaanadii dharka lagu qaadayay afka laga ka xirxiraaya baa gaarigan halkan idinka muuqdo oo qaadaya waa gaari weyn oo container ay dul saaran yihiin gaarigan wuxuu geyn doonaa deked ku taala koonfurta dalkan Ingiriiska kadibna waxa halkaas laga qaadi doonaa 15 May maalinta Khamiista ah waxaana loo qaadi doonaa haddii Ilaahay ay raali ka noqdo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta magaalada Dubai halkaasoo maxaa la yiraahdaa looga sii dhoofin doono Soomaaliya darkan oo runtii ay hawl badan naga gashay muddo badan aan ka soo shaqeynay ayaan maxaa la yiraahdaa gabagabadii Ilaahay maanta uu noo sahlay in maaragtay la qaado oo maxaa la yiraahdaa gabagabadiisii la geeyo dekadaas aan idin soo sheegay gaarigan runtii noocyada qaada xamuulka baabuurta oo la yiraahdo Scania marka waxay noo tahay kulay runtii farxad aad u weyn oo aan la soo koobi karin mar haddii ay soo gabagabowday hawshii dhibaatada badnayd oo muddadu ay dhibaatada naga soo haysay oo aan runtii ku soo rafaadnay ma hadii ha ka gaarto dhammaan intii dharkaas ugu deeqday dadka walaalahood ah oo dhibaataysan oo runtii dhibaatadu ay ku hayso maxaa la yiraahdaa magaalada Muqdisho iyo daafaheeda oo ay burburiyeen ama barakiciyeen cadawga ummadda Soomaaliyeed ee Tigreega Ethiopia iyo dagaal oogayaasha Soomaali sheegadka ee u soo horseeday dhibaatadaas runtii waa maalin inaba aan la soo koobi karin oo aan jeclahay inaan maxaa la yiraahdaa dareenkayga ku muujiyo marka mar dhowna waxaan runtii warbixin kooban idinka siin doonaa marxaladihii uu soo maray iyo documentskeeda haddii Ilaahay raali ka noqdo Ducaale Ciise Yuusuf oo noo daadihiya kaamirada bismillaahi rahmaani rahiim marka dabcan halkeena kan insha Allah ku wadan doonaa waxaan rabaa inaan xogaa documentation yar aan halkan maaragtay idinku siiyo 15kii waxaan bilownay bishii afraad 2007kii qaaditaanka dharkan maxaa la yiraahdaa oo runtii muddo badan iyo hawl badan ay gashay sida hadda idin muuqato waa gabagabo waxa la saarayaa gaarigii weynaa waxa ka horeeyay marka in guriga lagu soo kaydiyo guriga lagu hayo in maxaa la yiraahdaa guriyii markii ay ka bateen aan ku ururnay qasaas la yiraahdo access self storage oo ku yaala Wembley ku yaala 15kii waxaan agreement la galnay 15kii bishii 6 2007 waxaanu ka soo saarnay shalay oo ay taariikhdu ahayd iyo maanta oo aan labada maalmood ka soo gureynay 13kii ugu dambeyn waxaan ka soo wada gurnay 13kii bishii shanaad ee 2008 halkaas bil walba waxa lagu bixin jiray sida halkan idinka muuqata 283 pound shirkad ama meesha la dhigi jiray waxa la yiraahdaa access self storage sida halkaas idinka muuqata agreementkiisi iyo detailskiisi xilligii la saxiixay agreementka la galayna waa kan iyo isagana halkan idinka muuqda timekiisi 15kii bishii waxa la yiraahdaa markii arintaas ay noo soo gabagabowday waxaan u mahad celinaynaa mahad celinta waa noo dambaysaa waxaanu agreement la galnay shirkadda hadeer qaadaysa UASIE شحن الدولي اللي يراهدو oo leeyahay nin Arab ah oo Jazaa'ir u dhashay dalka Liibiya ayaan markii ugu dambeyntii hawshaas soo gabagabeeyay inuu maaragtay arintaas noo balki gareeyo invoice-kii lacagta lagu qaaday from London to maxaa la yiraahdaa Dubai-na waa 1,150 pound marka maxaa la yiraahdaa insha Allah dabcan de kulli intii ka qayb qaadatay ama intii gacanta naga siisayba waxaanu leenahay mahadi ka gaarto Ilaahay idinkiisna de kulli guddigii aan ku wareejinay South London Somali community oo nagala qayb qaatay sidii dharkaas loo deliver gareyn lahaa
isaguna aad buu maaragtay u mahadsan yahay runtii iyo gabagabadii maanta oo noo ah maalin inaba aan la soo koobi karin waxaan jeclahay inaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ay dharkan gaari doonaan waxaan ka codsanaynaa inay bal dadkii gartay inay dharkan isu keenaan iyo kuwii soo dhiibayba inay maaragtay mahadiha ka gaarto inay u soo duceeyaan inuu Ilaahay muraadkooda uu sahlo waliba waxaan idin ka codsanaynaa insha Allah duco kaleeto oo aan maanta danaynayno ma jirto waxaan danaynaynaa dhul shisheeyaa la joogaa caruura la haystaa inuu Ilaahay caruurta fidna nooga badbaadiyo bal inaad noo soo duceysaan baabuurta aan ku soo gurnay waxa kamid ah gaarigan oo uu leeyahay Ducaale Ciise Yuusuf iyo gaari kaleeto oo anigoo ah Cabdullaahi Cali Hiirad aan hore u lahaa marka iyo dad kaleeto iyaguna maaragtay nagala qayb qaatay runtii oo mararka qaybtood walow uusan jirin cid si dhab ah maanta isu keen garab taagtay haday noqon lahayd kiradii meesha lagu bixinayay hadii ay noqon lahayd baabuurtii soo qaadaysay waxyaabahaas oo dhan runtii dhibaato aad far badan baa halkaas naga raacday alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ka soo gudubnay maanta gabagabay maraysaa insha Allah wax kaliya aanu Ilaahay ka rajaynaynaa waxa weeye bal inuu Ilaahay awlaadda fidna nooga badbaadiyo insha Allah inaad idinkuna noo soo duceysaan aad noo soo duceysaan dadkii dharkan maaragtay aan ka soo qaadnay oo runtii dad meelo kala duwan kala joogay waxaan xusuus mudan oo aan jeclahay runtii inaan aad u xuso oo maaragtay istaahisho in la xuso jawaanka halkan idinkaga muuqda iyo jawaano kaleeto oo dharka ku dhex jira waa dhar isu wada eg oo isku nooc ah runtii oo bacahoodii ku jira sida halkan idinka muuqata gabar la yiraahdo Yusur Muuse oo Halisden London ku leh dukaan ayaa noo soo dhiibtay waxay tiri intaan ganacsi iyo bahalkii u bahal garayn lahaa ilmo Soomaaliyeed oo dhibaato ku dhacday baa jirtay loo geeyo runtii waa dhar aad u fara badan jawaankan weyn kaliya maaha laba jawaan oo kale taa jira aad baan insha Allah iyadana Ilaahay idankiisa u rajaynaya inuu Ilaahay iyadana muraadkeeda uu sahlo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ku boorinaynaa adduun in la shaqeeyo oo lacag la shaqeeyo xoolo la shaqeeyo waxa ka wanaagsan in aakhira la shaqeeyo oo dadka walaalaha ah oo Soomaalida ah dhibaatada ku dhacday in la garab istaago oo aan loo fiirin midab gobol iyo qabiil toona la isgarab taago si walaaltinimo ku jirto maaragtay oo Ilaahayna maxaa la yiraahdaa raali ka yahay marka waxaan idin leenahay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu insha Allah khayr baan idin rajaynayaa xaggayga waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ودعالي وعلي السلامي dadka daawanaya kameradan runtii waa maalin aad iyo aad u farx badan sida walaalkii sheegay muddo ayaan waxaan soo ururinaynay dharka maanta halkaan ku aragtaan waxaan ugu talagalnay dadka walaalaheen Soomaaliyeed maanta dhibaatada ku haysto magaalada Muqdisho iyo gaarkeeda ilaa Abgooy ilaa iyo Jowhar waxaan rajaynaynaa insha Allah sida aan uga qayb qaadanay arrintan inta far badan oo London jooga ayaa runtii aan aad u mahadcelinayo oo iska xilsaaray oo ay kamid tahay walaashay dahabo maanta gabadhaasu waa qofkii hawshaan nala bilowday mahad gaar ayaan celinayaa shukri waa kamid tahay waxaan kaloo u mahadcelinayaa sida uu hagaay sheegay habla aad u fara badan gabar kaloo hadda magaceeda aan naqsanayo baa jira iyadana harneysa degan runtii aad iyo aad maaragtay nagala qayb qaadatay dhammaantiin qofka aan xusnay qofka aan xusin waxaan ka rajaynaynaa in maaragtay Ilaahay uu ka abaalmariyo in ka badan ilaa 200 ilaa 250 ilaa 300 iska leh khayraad ayaa maaragtay alaabtan soo habeeyay oo si qurux badan loo soo shaqeeyay dadku aad u wanaagsan dadka halkaan markay gaaraan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay gaaraan dadka aan ugu talagalnay ee aysan noqonin kuwa maaragtay la qaato waxaan rajaynaynaa insha Allah qof kasta oo maaragtay naga mid ah inuu arrintan kala soo waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan West oo runtii kaalin xaalliga naga qayb qaatay oo arrintan runtii aad iyo aad maaragtay ugu dhiirigeliyay iyo dhalinyaro fara badan waxa ay ka mid yihiin hablaha soo shaqeyno oo la yiraahdo Somali awareness oo runtii aad iyo aad maaragtay sida maaragtay xanaan sida muxuu ahaa bisharo فرتون شكري دنيا ما شاء الله وليبا دنيا وحنا حسوستا يعني العقيه كرده يعني إنه يسوح القانتي كليجت ويلعب فن ريسين أو صدح بقول أو باون أو يسميسي أو لو بقول يجدتني صدح كم إذا عن كوب إحنا كروين كي بلا كم إذا حنا وحنا ما قلنا يعني وحيصد شوي وحيصد exactly
warqad la soo print gareeyay oo xayeysiinta ahayd ayay aad u soo design gareysay waxaan leenahay maalin wanaagsan anagu shaqadana ku jirnaa waqti nooma harin warku wada arkaan intaan dib ku kulmi doono waaniga oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi aad ay anolaato shacabka Soomaaliyeed dibka Allah ka faa'iido aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay guntii iyo gabagabadii shirkadda noo soo qaban qaabisay maxaa la yiraahdaa inaan shipkan halkan ka dirno waa halkaas idinka muuqata magaceeda iyo loogadeeda kharashaadkii ku baxayna dabcan waa kuwan iyagana meesha ka muuqda dharku markiisa hore bacay sidaas oo kale to iyaguna ahaa markii dambena qaabkaas loo soo maaragtay rogay marka waxaan jeclahay inay xoogaa madmadow yaray uu ku jiro laakiin I wish inay clear maaragtay dabcan inaan clear ahayn baa laga yaabaa balse ma fi mushkila insha Allah khayr baan idin rajaynaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala